mudane madaxweyne sida uu sheegay guddoomiyaha degmada waxaan horta kugu soo dhaweynaynaa gobolkaagii degmadii maxaan ku dhahay Sabo Wanaag tuulada Badar Wanaag oo iyadu difaac weyn oo si hore loo sheegay baad garanayso lagu sheegayn wada waatan wadadii aynu mari jiray bariga hore Hargeysa berbero kala baxaysay ku taalaa maxaan ku dhahay weyn wada garanayno ma qoladeenii hore intii wadada jirtay mari jirtay weyn wada garanayna Badar Wanaag sidee weyn jirtay waynu garanaynaa waxaanu halka ka garan karaynaa oo inooga muuqanaysa baashan la yiraahdo wadada qiimaha ay leedahay oo markii wadada mareysay caasimad bay ahayd maantana waa taa kharaabka aad arkayso ee wadintay taasi waxba yeela si dheeraanin ku soo dhawow madaxweyne qalbi furan ku soo dhawow iyo gacmo furan dadkaaga iyo dalkaaga oo ku diyaara inta markaan ka gudbo wax weeye bacad baa la fadhiyaa idinna safar dheer baa soo gasheen waxaan jecelahay inaan hadalka dheeraynin oo kelmadihiina kooban ku soo ururino maqsadka طبعا dee aabuhu hadduu reerka ka maqan yahay oo safro marka uu yimaado carruurta oo ka soo hor yaacdaa oo kolleyba wuxuu ku aaminsiiyaba ayuu ku soo talagalaa markaa deegaanka haddaad u timi baahidooda kolleyba inay wax kaaga taataabtaan oo ay dabcodsiyo ku soo jeediyaan daruuri bay noqonaysaa waa laga maarmaan kugusa badin mayno annagoo og awooddeena yahay inteennu inta ay tahay aanu dee xoogaal ka nahay badin mayna waa soo koobaynaa baahiyaha deegaanku sheeganaya ee halkan laga soo jeedo aanu ka soo jeedinayno waxa koow ka ah iskuulkii Cadaadley ee faca weynaa oo garanayso oon dee lagu sheegayn horta waxaanu kaaga warramaynaa iskuulkii waanu dhisnay oo community-ga dhisay qaran baan ku dhisnay oo inta badan reerku iska ururiyay dawladana aan wax ka qaadnay dad kale oo muxsiniin laftoodana ay wax noogu dareen iskuulku waa dhameystiran yahay dhismihiisa run ahaan waxa weeye baahida ugu badan ee dhulkan taala waa jahli reer miyigeennii dee reer magaalku wuxuunbu iska haystaa reer miyigeennii tacliintiida waa ka aradan yahay baahida ugu badan markaa waxa weeye waxbarasho iskuulle yaryar oo dhulka hadda ku fiiqsan way jiraan tuulayaasha laakiin meel ay ku soo hirtaan markay inta yar bartaan way u sii gudbaan ma hayaan reer miyigu wax ku baran karaan waa boarding wax ku baran karaa allahumma salli ala sayyidina qodobka labaad waxa weeye halkan aynu joogno waanu la soconnaa oo aadna runtii waa kaaga mahadnaqaynaa oo waxqabadka waaweyn ee muuqda imika maxaan ku dhahaynaa rajaynayo beebleeka ku soo jiray wadadii Burco ood weyne Hargeysa inay soo socoto wadada madaxweynihii ka horeeyay Axmed Siiraayo halkan uu dhagax dhigay diin qalbo dhagax dhigay annaguna waan ka soo shaqaynay oo dhagax maxaan ku dhahaynaa carrituul baan in door soo sameynay oo community-gu soo sameeyay wadimka si arki doonta haddii la yiraahdo inkastoo dhagax soo yar baxbaxado kawardii imka baydhbadho laakiin waad si arki doontaa insha allahu tacaala in dooraanu halkaasna annaguna aanu sii qabannay codsiga saddexaad waxa weeye deegaankani sidii loo sheegay waa deegaan ballaaran runtii min 29 ilaa Cadaadley buu taxan yahay waa laba degmo xagga maamulka marka laga eego waa deegaanka ballaaran haba yaraatee hal riig oo ku yaala ma jiro marka laga reebo mid dawladdii ugu horreysay Soomaaliya ee shacbiga ahayd ay meel halkan oo lagu leeyahay ka sameeyay isaguna qaraadho marmarna inta badanna jabanba oo lagu intifaacsan mooyaane wax alla wax eel riigu ay leedahay ma jirto halka madaxweyne waxaan codsanaynaa bal ceelasha riigaga hadda bariyahan dambe way lagu badnaayeen maxaan ku dhahaynaa nasiib baabaynu u yeelno in badan maan ka maqlaa riigagii la sameeyay bal iyagana xagga la soo eego oo degmada maxaan ku dhahay deegaanka laga soo qayb geliyo qorshaha dambe imka hadii loogu daro ceelal riigaga iyana waa codsanaynaa taa waxa weeliya tuulayaasha faraha badan leh imika intiisa wanaag xukumaysa uu sheegay guddoomiyaha halkan iga horeeyay intii Cadaadley xukumaysana way dheertay aad bay masaafadu u badan tahay tuulayaashu way fara badan yihiin waxa MCH le aad bay u yar yihiin xataa waxa jira meelo iskuulo boardina leh oo askari arday joogto oo aan lahayn rug caafimaad aan lahayn
marka taasna waxaan codsanaynaa iyadana xagga caafimaadkana in deegaankan bal isagana indho gaar loo yeesho haddii la idhaahdo waxna lagala qabto iyo annagu intii taagtaya waan rafanno iskuulo dhowr warso samayno qaar boodh inaanu haynaa oo intii taagtaya ahay rafannay laakiin waxaan doonaynaa bal intii dawladeedna maanta haddii ilaahay ku soo mariyey deegaankii aad baanu ugu faraxsannahay oo ku rajo weynahay inaad adigoo wada garanaya deegaankanu taana waxaanu codsanaynaa in xagga caafimaadka iyo biyahaba iyadana qorshahana loogu daro ku dheeraan maya hadalka wanigida markii hore sheegay baahiyuhuna waxay u kala mudan yihiin sidaan u kala horraysiinay number 1 waa iskuulka number 2 waa waddada number 3 iyo number 4 waxa weeye caafimaadka iyo biyaha intaas baan ku soo ururinayaa